waxaad ku soo dhawaataan videogan ajandihiisu waa labada ajende ayaan leenahay. midda koobaad waxa weeyaan inaan secure gareyno routerka iyo switchka anagoo isticmaalana local username and password. oo security wuxuu ka bilaabmayaa device-ka la soo gelayo waa inaan u sameynaa username iyo password aan ka hortagnaa in cid walba iska soo geli karto wax ka bedbedeli karto. marka qofka username iyo passwordka haystuun baa soo geli kara configuration ku sameyn kara routerka iyo switchka. ajandaha labaad waxa weeye inaan enable aan ku sameyno ama ka shaqeysiino SSH telnet oo maxay labadaas ku qabanayaan waxay ku saamaxayaan in remotely aad ku maamushid device-ka. remote maxaan ka wadnaa? device-ka aad doonaysa inaad maamushid halkuu joogo routerku iyo switchka waa inaad ugu tagtaa console cable qaadataa dabeetana laptopkaaga ama computerkaad wadatid aad gelisaa dabeetana halka configuration ku sameysaa. taas waxaa la isticmaalaa marka ugu horeysa base configuration aad sameynaysid. laakiin later on adoo xafiiskaagii fadhiya booskaagii positionkaagii fadhiya waa inaad geli kartaa device-kii isagoo meel fog yaala oo data centerka aanad ugu tagin meesha fog isagoo yaala waa inaad halkan ka geli kartaa. marka maxaad isticmaal kartaa SSH iyo telnet labaduba isku shaqay qabtaan. waxay ku kala duwan yihiin SSH waa encrypted oo datada uu diraya waxa weeyaan waa data encrypted. datada ka soo baxaysa computerkaaga routerka iyo switchka u tagaysa data waxa noqonaysa encrypted oo qarsoon. halka telnet datada ka soo baxaysa computerkaaga ee tagaysa routerka iyo switchka waxa noqonaysa clear text. marka labka markaad joogtid telnet waad isticmaal kartaa laakiin production environment markaad joogtid oo goobta shaqada aad joogtid real world devices aad isticmaalisid waxa lagu taliyaa in la isticmaalo SSH for encryption. marka labkan waxaan ka dhigi doonaa very basic lab. waxaan u baahannahay switch aan ku tijaabino iyo computer kaliyaad. marka switchka 2960 layer 2ga iyo computerkaas aan ugu fulan xarigan isugu xidhana waxa weeyaan waa straight waa different devices. marka facetana 0 kana doorto godka ugu horeeya facetana 0/1 ka horaan sameynayna marka hore username iyo password baan ku soo sameynayna maxay switchka. username iyo passwordka markaan soo sameyno next waxa noqonaysa inaan enable gareyno SSH iyo telnet labadaba dabeetana computerkana ka soo tijaabinayna. marka ugu horeysa prerequest waxa loo baahan yahay labadani same network waa inay ku jiraan waana spin gareyn karaan. marka IP address waan soo siinaa computerka IP address kale sida loo soo siiyo very easy laakiin kan wuxuu u baahan yahay inaad soo siisid VLAN 1 IP addresska. marka switchka aan u tago marka hore CLI dabeetana shaashadana aan noo weynayo little bit. marka ugu horeysa IP address baan soo siinaa basic thing. marka ka bacdi username iyo password baan soo sameynaa. hostname-ka waan bedeli doonaa later baan u imanaa SSH telnet markaan sameynayno laakiin for the time being VLAN-ka IP address aan soo siino. configure terminal baan leenahay interface VLAN 1 IP address baan leenahay. IP address kan isticmaalno let's use class C 192.168.1.1 with 24-bit mask. VLAN-kaas waa shutdown no shutdown saad u daartid. interface-kaasi hadda VLAN virtual-kaas waa daaran yahay. iska soo minimize gareeyo hadda PC-gaan aan u tago isna IP address aan soo siiyo desktop IP configuration 192.168.1.10. hadda waxaan tijaabin doonaa inay spin gareynayaan iyo in kale command promptka ku dhufo dabeetana bing dheh 192.168.1.1. let's wait request time it out maybe xabadda ugu horeysa wixii dambena way gaari doontaa. xabadda ugu horeysa resolution address resolution protocol MAC addresska iyo IP addresska inta lasku maap gareynayo ayay inta badan ku luntaa laakiin wixii dambe waa gaaray. taas waxay noo cadaynaysaa connectivity baa jira marka computerkan iyo switchkani waa is arki karaan. configurationkii hadda waan sameynay username iyo passwordkii dabeetana aan enable gareyno telnet iyo SSH. switchkan ku noqonaya exit ban leeyahay global configuration-ka aniga jooga waana soo sameeyay username waxaan leenahay username u baahnay username-ka waa ka question mark raaci dabeetana magacaad u sameynaysid username-ka admin administrator Ali Maxamed any name. let's give it symbol Ahmed ay dhahdo question mark. passwordada intaan u imano halka waxa jira privilege waxa la yiraahdo. Ahmed awood intee lag baad siinaysaa privilege-kaas aad raacinaysaa. haddii aad ka reebtid default-ka wuxuu qaadanayaa privilege 0 wuxuu keenayaa Ahmed markuu soo galo halka loo yaqaano user mode-ka.
halka ugu horeysa dabeetana aan idhaahdo halka markaa privilege kan siina awoodda ugu badanna waa 15 that means waa administrative level toos wuxuu kuu geenayaa meesha loo yaqaano enable mode marka 15 idhaahdo waxay noo raacaa waa maxay waa password iyo secret labaduba waa isku mid bay qabtaan kani waa password ka raacaya kan laftarkiisa waa password laakiin data ku save garanayo waa clear text kan waxa noqonaysa data maxay encrypted haddii password command ka isticmaalo halkan password aan idhaahdo wixii ka dambeeya aan ku qoraal ka mid ah password kan isticmaalo siska 123 intaan ku dhufto show run ay idhaahdo do show running config hadda password ka aragtaan dabeetana halkan kaalay show running config maxaad ku arkaysaan passwordku maxay ku muuqataa clear text running configuration kaad ku arkaysaa halka haddaan secret markaan isticmaalo halkan u bedelaya so let's do that ka horaan ka tirtirno noodan ka horeysiinaya waxa leenahay noodan ka baabiyo jahada sarata abo dabeetana ay dhahdo instead of password waxaad isticmaashaa secret Cisco 123 markaad qoraysid way muuqanaysaa laakiin show run haddaan idhaahdo do show running config halka maxaad ku arkaysaan username Ahmed secret 5 then blah 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 wax qarsoon weeye marka that's recommended one in la isticmaalo always secret instead of password username and password baa soo sameynay okay username and password waa in lagu soo galaa the next thing marka la soo galayo waxa lagu soo gali karaa console in la isticmaalo xarig toos console loo yaqaano oo ah kan this is the console waad ku dhufanaysaa maxay console kaas dabeetana kana dooranaysaa rs dabeetana waxaad imanaysaa terminal intan basic asset sideedaas ku daynaysaa then okay baad oranaysaa hadda maxaan ku jirnaa arkaysaa I'm inside the switch kima ku jiraa anoo jooga maxay PC0 waxaan ku soo galay console-kii marka qof walba inaan iska soo galin aan idhaahdo waxaad samaysaa password ku soo xidh console-ka laftarkiisa username iyo password ka soo samaysay hal lagu soo xidho marka waxaan leenahay line ku dhufto line question mark imsa line baa jira marna console baa lagu soo gali karaa marna telnet iyo SSH oo loo yaqaano VTY virtual terminal console kan ku horeysiino console 0 waa hal interface buu leeyahay login marka la sameynayo local weydii qofku markuu soo galo local weydii local kaas waa local database muxuu ku hayaa username ka Ahmed iyo password kiisan ka dhignay Cisco 123 so tijaabino PC0 tag iska soo xidh waxaad timaada terminal okay dheh exit session kii hore haysta exit username maxaan ka dhignay Ahmed password 123 disable exit hanu weydiinaya password buu weydiinaya Ahmed Cisco 123 waa xidhan Ahmed space maraya Cisco 123 we are in show users halkan ka soo galay waad arkaysaan waxaad ii muuqda console-kii baan isticmaalaya okay console-kii waan ku xidhnay waxaa noo harsan telnet iyo SSH kiina enable garayno ajandaani labaad baan ku jirnaa configure terminal telnet iyo SSH haddii SSH aan doonayno waa in horta host name-ka waxa ah sharad in magaca aad ka bedeshid magaca kale aad isticmaashid ka default-ka waad bedeshaa for encryption buu isticmaalaya marka waxaan leenahay host name sw1 ay dhahdo waa inaad soo sameysaa domain name waxa loo yaqaano ib domain name example for example.com encryption ka loo isticmaalay dabeetana waxaa ku xigta crypto key generate RSA crypto key generate RSA waa public key infrastructure key iyo public keyga loo isticmaalaya oo lagu soo galaya maxay SSH ka okay SSH ka inoo enable garanaya by default
marka keygu isticmaalo waa maxay waa 512 bit ayuu wax ku encrypt kareynaya halka muxuu isticmaalay domain name-kii plus host name-ka intaas la soo qaaday dabeetana laga generate kareynaya keys waaye halka aad arkaysaan SSH waxa la enable gareeyay version 1.5 that means waa version 1 waxaynu harsan hadaba waa inaan sheegnaa qaabka lagu soo galiyo halka line VTY waana dooranaa line console waan sameynay line VTY waxaan leenahay 16 qof buu ogol yahay switch-kan in la soo galo hal mar simultaneously 16 qof waa soo wada gali kara mar kaliya marka waxaan leenahay 16 qof baa weydii username-ka iyo password-ka marka waxaan leenahay qofka ugu horeeya ilaa laga gaadhayo 15 minus 0 waa qofkii koobaad ilaa qofka 15aad oo ah 16aad dhinaca kale marka laga tiriyo 15 plus 0 u tiri hal number inuu yahay marka 16 qof baad ogoshahay in at the same time ay soo galaan waayahay markay soo galaan maxaa la sameynaya login waxaan leenahay markuu qofku soo galayo localka weydii local database-ka lagu hayno username-kii Ahmed iyo password-kii Cisco123 waxaan leenahay qaabka lagu soo galayo waa maxay waa transport input telnet baad ogolaanaysaa or SSH ama midna ma ogolaanaysid ama dhammaantood baad ogolaanaysaa labadoodaas markaan idhaahdo all san u tijaabino telnetka iyo SSH okay inta markaan sameyno we are done and baan leenahay iska soo xidhina kan aanu imaado PC-ga halkaa markaad joogtid laba option baad haysta command prompt-ka inaad SSH iyo telnet ka soo samaysid iyo in aad u timaadid telnet iyo SSH client kana fudud ku dhufo telnet-kan halkan SSH baa enable wuxuu baahan yahay IP address-ka iyo username IP address-ka switch-kan soo sina 192.168.1.1 username-ka waxaan ka dhignay Ahmed dabeetana idhaahdo connect wixii password-ka Cisco123 toos halkuu geeyay user mode or enable mode-kii ama privilege mode-kii show aan idhaahdo users waxaan imika kaga jiraa asriga aad arkaystaan VTY baan isticmaalayaa okay userku waayo Ahmed weeye waxaad kaga qaban kartaa dee wax allaale waxaad ka qabanaysaa switch ko dhan baad ka qaban kartaa halkan exit aan idhaahdo iska soo xidh dabeetana dib u soo fur telnet-kan tijaabino telnet which is not recommended in la isticmaalo in production laakiin lab waa iska caadi IP address-ka soo siinaysaa connect wuxuu u baahan yahay waa maxay username-ki username-ku wuxuu ahaa Ahmed password-ku Cisco123 then wuxuu nageeyay privilege mode-ki show users again VTY baan isticmaalay nameka halkaan ka soo galnay IP address-kii computer-kaad ka soo gashay marka adigu halkan jooga ayaad maamulaysa wax allaala waxaad uga baahneed aad ka qabanaysaa switch-ka switch-ka iyo router-kana waa isku mid weeye inaad isticmaashid telnet iyo SSH labadaba isku same process baad ku enable kareynaysa waxaan ku secure gareynay username iyo password qof aan username iyo password-ka aan haysanna oo local username iyo password waayo wuxuu ku save gareynaya database-ka switch-ka iyo router-ka gudihiisa oo server-ka lama haysano dabeetana halkaas uu ka soo akhriyaya username iyo password qofku hadduu wax qaldan soo geliyo tusaale aan tijaabina qaldan yes aan idhaahdo command prompt-kan ka tijaabina SSH-tiisa SSH-L Ahmed IP address-kan qoro password qaldan ma gelin Cisco1234 مثلا qof ma haysto password invalid login Cisco1 Cisco2 connection-ka waa kaas xidhay wuu diiday telnet-na saasaad u qoraysaa 192.168.1.1 username Ahmed Cisco123 dhiiban raaciyay dheeraada invalid login marka qofka aan username password aan haysan ma geli karo okay sidaasaad ku secure gareyn kartaa router-ka switch-ka adoo isticmaalaya username password sidaa fududna waanu enable garanay telnet iyo SSH